maayarka maamulka magaalada Qabdar injineer Cabdi Cawil iyo maarayihiisa adeeg bixinta Cabdi Codweyne ayaa aqoontii ciidanka liyu booliska iyo xaasaskoodii qasab kaga saaray jiingado ay ka deganaayeen magaalada Qabdar iyagoo maayarka iyo maarayihiisu raba inay dhulka jiingadahaasi ka dhisan yihiin ay gataan si ay uga faa'iidaystaan waqtiga kala guurka iyo kala cararka ah ee lagu jiro oo ay jawaabka u sii buuxsadaan kadib markay waayeen dhul kale oo ay galaan maadaama ay dhulkii magaalada Qabdar horay u iibsadeen maayarka maarayaha iyo madaxxafiiska maaliyaddu. haddaba mar haddii aqoontii xaasaskii iyo maxastii ciidanka jingadihii ay deganaayeen laga furanayo maxay sugayaan ciidanka liyuugu yayse qoryaha u sitaan aqoontan iyo maxaskani waxay sheegayaan in xataa ay maamulka magaaladu aflagaadeeyaan iyaga iyo carruurtoodaba kuna tilmaamaan dhiigyo cadda idin qaba oo carruuraha idinka dhalay iyagoo liyu boolis baa qaba darteed looga saarayo jiingadaha horeyna loogu quudhi waayey in guryo wadareedkii dowladda wax laga siiyo. haddaba su-aasha meesha taalla ee isweydiinta mudan ayaa waxay tahay maxaa la gudboon liyuuga mar haddii aqoontoodii iyo xaasaskoodii sida loo gelayo iyaguna ay maalin walba u dhimanayaan difaaca shacabkooda. bal nala dhegaysta oo nala daawada dhibaatada haysata aqoontii liyuuga maxasta iyo xaasaskoodii ku sugnaa magaalada Qabdar. dadka bulshada loo adeegayo nalaga karantiilay guryaha dawladdu ay bixinaysaa nalagu darin dhulka dawladdu ay dadka danyartaa siinaysana nalagu darin maamulka magaalada Qabdar dib nalaga qabto ka cabanayna dawladdu ka fadhiyay maareeyaha laleeyahay annaga dulmi badan buu lagu hayaa dhulka waa nagu dhalana ragga naga u dhinto oo u dhaawacma ma garanaysa oo ilaalinaya isaga guryo wadareedkii oo shalay hore la bixiyay waa naloo diiday kuwii kalena laga reebay jiingadahaas oo dhulkii dawladda yuu nagu haystaa maalin walbana isagoo cagafata uu noo imanhayaa arrintaas wax loo dulqaadan kara ma aha. annaguna waxay ciidan buuna nagu midabta ka horaya liyu boolis dadkii bay laayeen carruur qashin ay wataan way gaataysan yihiin ayagiiyo naagihii magaalada intay wada shireen maayirka iyo waxay ku dhaheen la dhaafi naagaha liyu booliska ee qashinka ee weel haysanin ee gaataysan ee ragoodina dhiigsadaan qabaha yahay waxaas annaga nagu dhaar isaguna waa yahay buu uu la qaatay waxaana cagaf baa nalala soo dilistaagay cagaf baa nalala soo dilistaagay maalin walba annagu kulmigaasaanu qabnaa aga dawladda wax ka qabanaysana waxaan ku dhaarkaa noogu timaado raganagiina canfar baana laga horgeynayaa kolba maxaan ku dhahay cadowga laga horgeynayaa ilaa korneyladii aan xataa dadkii dhalay samir iyo iimaan lalahaynte ayaan axmed maxamed waxaan deganahay jiingadahan haweenka ciidankaan ahay ciyaalkanaan haystaa faraha badan waxa weeyaan maayirka iyo maareeyo maalin walba ay noo yimaadaan dhulka waxay rabaan inay maadaama dhul dawladeed yahay way noo quudhi laayihiin maanaan muwaadiniin hayn waddanka maanaan u dhalanin maxaa naga sheeyaha naga dhigay maxaan ku dhahay dadkii waddanka u dhashay baana maxastanaanu nahay maxaana kaeeday annaga oo waddanka maxaan ku dhahay naga waxa weeyaan naga eriyo maanaan waddanka u dhalan. magacayga waxaa la dhahaa Faarax Maxamuud Xasan midigta waxaa iga hooyaday baa iga bidixda waxaa iga Daahir Maxamuud Xasan oo walaalka daahir waxa weeyaan dadkii canfarta ku soo tabaalay weeye ee ciidanka liyu booliska taambal baha anigu waxa weeyaan xilal badan waan soo qabtay maleeshiya soo maray hoggaan baan soo maray guddoomiyaan soo maray waxa weeye hadda abakaariga gobolka Qorraxay baan ahay ee xafiiska nabadgelyada waxaan ka caawinaynaa maayirka magaalada maamulka Qabdar rajadaas waxa weeye waa lahaa shay dhulka 13 sano lahayn maayirka waxaan uga cabanaynaa in uu si toosan loogu haysto asaga maayirka uu nagu haysto dadna uu rabo inuu ka gado asaga oo aan qarsanaynin oo cadaysanaya inuu dad uu rabo inuu ka gado annagu waxa weeyaan cadaaladdan hoos taaganahay cadaalad baan rabnaa waxaan tirsanaynaa ciidan nacayb waxaan tirsanaynaa faquuq baan tirsanaynaa jir nacayb baan tirsanaynaa waxaan tirsanaynaa arxala ayaan tirsanaynaa maayirku inuuna daneynaynin dadka u soo tabaaloobay ciidanka iyo ciidankaba uu necab yahay ciidan nacayb baan tirsanaynaa waxa weeyaan waxaa dhacday
إن كتابنا لقمري أو كتابنا صهر إيه بعد علي صبروا أرسم كان يجي مركان كاني إنه كتاب كان مرة يجي كتاب كذا مرة لكم من ندين بانكم ما مر لي ولا غالب تاسن صوم الري حرض بان صوم الري ما يركع إياه حويان ماريها لا بصنو يعني هذا سلوس عنا على شرب ضمن بنجيسني مسؤولين توي أجيين عيدك برشة قبيل هان ما يركع اسكو قبيل بانهاي إن وحتى نظام قبيل ونو إرجعي جوجل بانو دقي قبيل كي ولا له الله جد ولا صاري وحام ما يركع ولا يقوم ويا عيال أو عتاي محاشر الكاية ما يركع حويان إن عن هذا الله وحنو كلفي هذين كعوحك كعيبه يوم مغلي إن وحن عصرنا ما يركب مجالده وأنا isku heerka aan u soo noogalayo dadka kala xageey jooga oo hin badan baa jirta cabasho badan baa jirta maayarka waxa weeyaan waa kama dambaystii maayarka waxa weeye xeerka uu samaystay iyo dhulka uu dadka qaar ka jarayo ee uu leeyahay dadka waan qaadan dhulka uu leeyahay